kaftankii haddaan ka jawaabo walaalkay uu yiri fiisa xajkaan rabaa maalin dhoweyd baan wasaaradda tagay waxaan sheegay maalmo yar inaan joogi doono inta yihiin alla og Robo oo iska casilaya xilka wasiirnimo ee dhawaana loo magacaabay kadib markii ay ka shakiyeen madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse iskuna sharaxaya xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya warbixin xasaasi ah oo aadan ogeyn ayaan ka dabageynaya daawade marka hore muuqaalka like saar haddaad ku cusub tahay channelkeena Xaqiiq TV subscribe inoo saar waxba ka dhibi mayso inagana faa'iido ay inoo tahay maalin walbana waxaanu kula socodsiin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee ka jira gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale dunida adacaladeeda Sheekh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur wasiirka diinta iyo awqaafta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si toos ah u sheegay inuu dhawaan isaga tagayo xilka wasiirnimo ee loo dhiibay laba sababood dartood tan koowaad waa inuu kala shaki soo kala dhaxgalay isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa magacaabay ee Xamse Cabdi Barre oo bilaabay inuu si gaar ah isaga ilaaliyo Sheekh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur maadaama uu horay Abu Mansuur u soo noqday amiirka xogeenkii hore al-Shabaab sidoo kale Robo ayaan wax weyn u arkin xilka wasiirnimo ee loo dhiibay maadaama uu yahay nin doonaya inuu lafta gareena ka arguto wuxuuna isku sharaxaya madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama uu dhamaaday muddaxileedkii lafta gareen dhawaana doorasho looga dareeri doono Baydhabo Janay wuxuu Robo doonayaa inuu helo kursiga madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ee markii uu damaaciyay sanadkii 2018 xabsiga la dhigay balse hadda uu haysto fursad uu si fudud ugu noqon karo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Robo oo horay ay u xireen dawladdii uu hogaaminayay Xabiibul Malaayiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa iminka waxa uu markaasi isagu uu rabaa inuu gumaado ama uu dhameeyo shacabka ku sugan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaftankii haddaan ka jawaabo walaalkay uu yiri fiisa xajkaan rabaa maalin dhoweyd baan wasaaradda tagay waxaan sheegay maalmo yar inaan joogi doono inta yihiin alla og haddaad igu soo gaarto dib male bismillah marka hore waxaan ku bilaabayaa inaan u mahad celiyo madaxda qaranka Soomaaliya uu ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Mohamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo ra'iisul wasaare Xamza iyo inta la midka ahba runtii man lam yashkur an-nas la yashkur Allah waxaan u mahad celinayaa runtii inay dulmigii iyo afduubkii aan ku jiray ay xariga ka jareen oo anoo xura aan maanta joogo bal ay igu soo dareen xukuumadooda iyagoo dad badan ay meelaha nuunu ka lahaayeen ay runtii aqbaleen inaan dawladda ka mid noqdo tan kale waxaan u tacsiyeynayaa markii aniga la idulmiyay dadkii la dilay dadkii la xiray dadkii la dhibaateeyay dhammaantooda waan u tacsiyeynayaa waan ka xumahay taasna ugu dhacday baa idinku wada dhacday inta dhimatayna ilaahay jannada ha geliyo inta dhaawacna ilaahay ha caafiyo inta dhib gaarayna ilaahay ha ka qaado dhibka tan ku xigta runtii waxay tahay inaan si guud Soomaalida meel kasto ay joogaan aan u mahad celiyo dadkii dulmiga la geystay ka dheedhiyay meel kasto ay joogeen dal iyo dibadba Soomaalida iyo qeyrkoodaba waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr runtii wax fiican baad samayseen dulmigun wax fiican ma ahan ninka hadda la sheegay Haysom oo anigu dhowr marna aan is aragnay intaan la xirinba runtii isagana waan u mahad celinayaa doorkii uu ka qaatay dulmiga meesha ka dhacay Haysom meeshan waa laga buriyay sida la sheegay oo dalka ka baxbaa la yiri laakiin inuu dulmiga ka dhidhiyay mar badan baa la sheegay galabtana waa la sheegaya qof kasto dulmiga diidana saas loo xusiya waxaan ku soo gabagabeynaya nasiixa caama inaan soo jeediyo oo ah meelihii markii aniga la soo afduubayay doorasho boobka lagu sameeyay dhibaatooyinkii ka dhacay annagoo dhanba عفو عامة إن شاء الله تعالى للصنايو ليس وضع عفيو meelihii dhibaatooyinkaas ka dhaceenna
gogol nabadeed in la dhigo beri dhoweyd odayaal reer koonfur galbeed baa xabsiga iigu yimid maalmihii u dambeeyay xabsiga waxaan ku iri anagu cidna ka aarsan maynay waxaan rabnaa dadku inay gacmaha isqabsadaan oo la iscafiyo gogol nabadeedna la dhigo wixii dhibaho meesha ka dhacayna maslaxa iyo wanaag iyo nabad looga baxo haddana saasaan leenahay runtii xabsiga aan anigu ku jiray muddadaas dulmiga lagu sameeyay aan ku jiray waxaa dhacday runtii dad badan inay iyaguna xabsiga ku jireen waxaan leeyahay intaa xabsiga ku jirtay dhammaantoodana idinkuna sabra haddee waa ku wada jirnay maxaa yeelay dad baa danahoodii oo dhan siyaasadeed iyo dhaqaale iyo dhaqanba loo diiday waxaa dulmi ahayd runtii dad reerahooda ay rabaan oo ay diyaar u yihiin gacmaha iyo lugahaba inay u taagaan oo ku doortaan in la yiri ma tagaysid holka qaarkood oo meeshaan fadhiya in la yiri wadankii adiga laga soo dooran lahaa deegaankaaga ma aadi kartid ma galaysid taasuna waxaan rajaynaynaa inay dhamaatay oo mar dambe aanay nagu soo noqon insha Allah taala walaalayaal aad baan idinku mahad celinaya saad noo sharafteen ood noogu soo gurmateen runtii anoo xabsi ku jira meel qolal igu tuuro ku jira qolka dhala ka daarnayd ani la yima daarina waa iska daarnayd oo waa lagu halmaamay ayaa marka waxaan arkay dadkii oo baydhaba dhexdeeda firiirdoodka mudaaharaadaya oo sawirkayga wato meesha u saaran yahay oo firiir roobow ku qoran tahay oo kuna celcelinaya hoogaa runtii waa dhiirigelisay dhabtaan idin sheegay waxaan ogaaday inaan la ihalmaamin oo ay dadku mintidayaan runtii waa un la dhibaateeyay mooyaan dhib badan baa dhibka bata waqtiga dheeraaday mooyaan way dadaaleen runtii xabsigu waa dhib badan yahay inta og iyo dawladda waxaan dhihi lahaa dadka xiran inay hubiyaan dadka xiran xabsi qofkii soo maray baa yaqaan qolaa meesha mar igu soo boqotaa waxaan ku iri meeshaan waxaan ku hayaa jaga cid igu haysata la arag waxa yeelay meeshaan ku xirnaaye muqtaar xabsiga hal iga qaado wax dhaay baa wixii kale wala isku dilaayo boogta xabsiga iga soo qaado wax ma aanan arag jazaakum allah khayr dadkaas waxay u baahan yihiin xabsiyada ku jiro caafimaadkooda tacliimtooda waxooda oo dhan in laga warqabo waa markuu xabsiga gar yahay waxaan ku soo gabagabaynayaa u dambayso anigu waan xirnaa dulmi baa la igu xiray waa afduubnaa madaxda qaranka madaxweyne xasan sheekh waxaan uga mahad celinayaa anoo xiran inuu sheegay inaan afduubnaa markuu meesha qabsaday markii loo doortay xilkana afduubkii buu iga soo daayo waan soo baxay qaanuun la ima soo marin maxkamad la ima soo marin maalin la ima keenin bal iska dhaafay 4 sano ku dhawaad oo xiranayo wax malafa ma aanan lahayn wax feela ma aanan lahayn waxa ka sii darnayd baarlamaankii qaranka dadkii aniga igu tuhmay intay u yeereen oo ay dhahan war ninka ma aragteen ay ugu jawaabeen ma aanan arag waxaan rajaynayaa in insha Allah taas ay dhamaato